لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ولا ليال waxaa lagu jiraa xilli fitantiisu badan tahay shartiisu badan tahay khatartiisu badan tahay gabdhaha muslimaadkaasi gaar waxaa looga rabaa inay dhowrsanaadaan ay noqdaan gabdho dhowrsan oo rabbigooda ku xiran subxaanahu wa ta'ala oo sharcigooda ilaaliya oo jirkooda ilaaliya oo diintooda ilaaliya gabadha muslimada markay ilaaliso diinteeda oo ay Allah ku xiranto subxaanahu wa ta'ala Allah waa ilaalinaya hadaa diinta Allah xifdiso Allah waa ku xifdinaya subxaanahu wa ta'ala laakiin haddii aan noqoto qof iska yaaca sida uu raba yeela wuxuu raba dhabjiya waxa uu la kulmi karo waa xaalad khatar gabadha muslimada waxaa laga rabaa sida ninka muslimka looga rabo isheeda inay laabto oo ragga ajnabiga ay ka laabto taleefanadan tirada badan waa weyn waxa ku jira indhaheeda ay ka laabto indhaheeda ay ilaaliso subxaanahu wa ta'ala jirkeeda ay ilaaliso gacmaheeda ay ilaaliso maxaa yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay gacantu inay zinaysato isha inay zinaysato afku inuu zinaysto xibnaha dhan way zinaysanayaan zinay ku dhacayaan oo qaybtooda ka qaadanayaan zinada farjiga u rumaynayo ama u beeninayo marka in isha la laabo ayaa la rabaa Allah subhanahu wa ta'ala sida ragga uu amray dumarkan wuxuu amray arag inay laabaan وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن حلا بين أرجودا فرجودا هاي العليان فرججا يأرجو إسكو حرينهن حرير وين بحق الحياة أرجع هدي لا فسحه وحاول نفط خطر يكون جرتها خطر وين بيكون سوانتها وحاول عنده هدي أركان حمانتي وحاول لا سير راعو قف قبل آدم وي حمانتي إنه كله خطر وجرها marka in araggal ilaaliya isha markaad ilaaliso adiga dhan waxaa noqonaysaa qof ilaashan oo Allah ku xiran subxaanahu wa ta'ala Allahna waa ku ilaalinaya ilaalinta ilaalisay waxa uu xibnahaaga Allah ku ilaalinaya subxaanahu wa ta'ala nadratun fabtisamun fakalamun famaw'idun faliqa ishu balaya dhan waxay ka bilaabata isha ka bilaabata nadratun eegmo marka hore waa la is eegaya waa la is arkaya isha la isku dhifanaya كدي maxaa ku xiga markii ay is arkaan labadii qof fabtisaamun isu dhool cadeyn wala isu dhool cadeynaya markii la is arko wala isu dhool cadeynaya hadii la isu dhool cadeyn maxaa ku xiga fakalaamun hada ayaa ku xiga qofka markaad aragto haduusan ku dhool cadeynin inaad la hadasho way adagtahay marka wala dhool cadeynaya hada la ku xigo hada markii la wada hadlo waxa imaanayo nambarkaaga isi cinwaankaaga ii rab waxba la is dhaafsanaya kadibna waxa imaanaya famaw'udun balan wala isbalansanaya markii la isbalansadana waxa imaanayo faliqaa'un kulana imaanayo kulanka markuu yimaadana dhibaato imaan karto marka horeba argaaga laab ishaada laabto Allah ku ilaalina subhanahu wa ta'ala Allah jalla jalaluhu markuu zinada naga reebay wuxuu yiri wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zinadu wa khatar Allah wuxuu yiri u dhawaanina Allah ma dhin wala tazinu hazinaysanina الله وحده سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا حبا ودوانين الزنا كفوغاد halka asal laga xiri waa kafogata marka waa inaadan meel gaar aadan la galin ninka ajnabiga waa khatar noloshaada iyo dhowrsanaantaadu khatar gelinaya meel gaar ah la galin hadii la sheekeysanayo wala isu baahan yahay banaankaas la fariisto meel waalidka idin jeedaan dadka idin jeedaan fariista hal heshiyo waalidka loo soo gudbiyo hawsha hore u socoto hadii la isfahmi waayna hala kala tago yaan xumaan ku dhicin meel gaar ah hadii la galo labada qof dareena ku rakiban shaydaana saddexeenayo shaydaan markii uu saddexeenayo xumaan baa lagu dhacaya khatar ay imaanaysa markaas hadda kora waxa la yiri Ciraaqi ka dhacday qisadan waxa isbalansaday wiil iyo gabar wiilku wuxuu ahaa wiil wanaagsan ahlu khayra oo guur diyaar u ah gabadhii waxay sameeyday guriga diyaarisay cabitaan u diyaarisay guri gadaale وفي أبي ديارسي أيضا كما أهين وحوي جوردون ينفتح إلى كما أهين حمام بيربتي جوري كوب الله مسوي ويمد وقت مركل الشاكة استكدي وجبدي وحي باللاضي يعني درك إسكافو ذيسو ودرك خفيف سوق عالته وأسجع معناها أي سوجيته أسجع آد وحشاضي وكعب سدي حسير جبدي وأنا أكسند ولا شيء كيسنس إنتاس ومستقبل كات كربتي وما حي سمانس ويحيى هوس وفيري markaas wuxuu tiri maxaa ku dhacay soo dhawaatay markaas maxaa ku dhacay markaas wuxuu yiri waxba uma dhicin waa maxay waxa sameynayso markaas wuxuu tiri maxaa ku dhacay soo dhawo maxaa dharka iska fuudeysay way isqaawisay way soo dhawaatay ninkii wax isbedel waa yeelan waayay
waxa ilaalinayo oo celinayo alla ka cabsigiisa allah ka cabsana subhanahu wa ta'ala وبعدين waxay tiri maxaa ku dhacay shaqaysatid markaas wuxuu yiri asagoo raba inuu asaga iska dadiyo waan jirana walaalay jiraan qaba aniga oo maxaa qabtaa eedisan qaba cudurkaasaan qaba khatarta ah marka inaan kugu daarta ayaan ka cabsanayaa iska ilaali walaalay maanta markaas waxay tiri anigu eedis waxaan qabaa 4 sano ayaan eedis qabaa عقومة تحكي ده يرد الدرب فكير يرد وكبح وعري نكاس الله وبدبادي سبحانه وتعالى الله محكو بدبادي الله محكو بدبادي الله كعبس كيسي إله وكعبس سبحانه وتعالى إله وبدبادي فرجوا المسلمات هي جدرك حجاب عندها إلالي كركها إلالي رجها إلالي حماتي إسك إلالي الله وكو إلالنا سبحانه وتعالى مركز إلالي سو نارتنا وكا إلالنا يا أجودنا شر وكا إلالنا احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إلهي إلالي الله وكو إلالنا يا إلهي إلالي هرتاد يركي ليساي والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا